hooyoy hee maxamed waa dhintay maxaa dilay maxamed waaba maqnaaye inta oo ku dhintay maxamed waa isdili rabaa malaynaa guriga waa soo xirtay albaabada dhan waa xiran yihiin daaqadaa la fiiriyey xerigaa ku xiran asagana waa taagan yahay halkani waa xaafadda Xawganey ee degmada Daynil gobolka Banaadir halka loo yaqaano kaan bulsho weyn waxa halkan ka dhacda xanuun badan kadib markii halkan oo maanta isku daldalay Maxamed Cukaash oo deganaa qolkan iga dambeeya arintan ayaa noqotay mid aad loo hadalhayo oo ka dhacday halkani arintan waxa sababta markaas lagu sheegay oo ninkan isku dilay khilaaf u dhaxay asagii xaaskiisa muddooyinka u dambeeyay arrimo la xiriir dhanka qoyska Maxamed oo maalmihii u dambeeyay maqnaa saaka yimid hadal dhexmar asagii xaaskiisa waxa la sheegay salaada duhur kadib qolka intuu galay kadibna oo soo xirtay albaabada in halkan markaas isku daldalay saacada kadibna la arkay meedkiisa oo guriga dhex loolanaya waxaana goobta soo gaaray ciidanka booliiska kadibna waxa loo qaaday CID-da halkaas oo markaas baaritaano kala duwan lagu soo sameey doono waxa warbaahinta goobjoog markaas la hadashay kagan warbixisay sida wax u dhaceen maama dahab oo ah saddexda wiilka taas oo markaas dhashay xaaskiisa maxamedow iska baxaan dhahay maskaxdaada soo degso iyadana waxaan dhahay maskaxdeeda adegsato kolley waxaan dhahay shaydaanka aneeta intuu ka dagaayo adna waxaan dhahay iska baxay magaalada iska galaan dhahay iyadana waxaan dhahay iska joogto kolley waa la hadlaa intii tabar ee garaankeyga waa ula hadlaayaan dhahay maxamedow saas yeel hooy haana ma idhihin mayana ma dhihin saa loo yahay dhulka loo harhariiqa meeshaa soo fadhiyey oo gabadhaas ka gadaaleyso oo fadhiyey markii dambe soo shub uu ahaay wuu istaagay hadduu istaagay wuu baxay markoo baxay ani waxaan isdhahay marka maxamedka haddoo baxay adna bal iska baxe bushbariisoo meelahan oo iigu yaal bal aada soo fiiri santarka oo heeqaay soo fiiriyo aadaan isdhahay kis yar haddaan jooge cunug ordaaya ii yimid hooyoy hee maxamed waa dhintay maxaa dilay maxamed waaba maqnaaye inta oo ku dhintay maxamed hooyoy gurigoo isku soo xiray xerigoo qoorta gashtay waa dhintay yaa la dhahaya oo hadda maba dhintay waa dhintay iridina waa isku soo xiray meel laga galo male daaqadaa laga arkay guryahana waa isku soo daaqadaa furneed daaqadaa laga arkay anigii naxtinta aan nahay ilaa hadda balaqaan ah xibnaha dhan balaqay yihiin marka maxamed ilaahay u naxariisto maxamed wiilkeygoo ahaa naxariis jan ilaahay asiiyo wiilkan iyo gabar kale oo u dhashay gabadheeda ee u dhashay wiilkeygoo ahaa wiil aan dhaqankiisa bartay oo aanba la rabayo ahaa maama Madiino oo iyaduna ah ehelka marxuumka oo kamid ah dadka deegaanka sidoo kale dhacdada goobjoog u ahayd oo sidoo kalena dhacdada goobjoog u ahayd ayaa markaas la hadashay goobjoog waxaana ka warbixisay sida wax u dhaceen iyo waxay ogtahay kiiskan inta uu leeyahay cawo maraba maalin maraba ay tiri maxamed gadaashiisa kama soo kacay madaxayga ha isiyo wuxuu yiri aniga inaan madaxayga siiyo waa igu culus tahay oo dhahay saafi intaas iga tahay inaan dhaho saafi intaas iga tahay inaan dhaho waa igu culus tahay lagamana yaabo dhahay inaan furo intaas hal dalaaqa noo taalo halka dalaaqna inaan ku dhawaaqo lagama yaabo waa lay dili karaa oo dhahay albaabkaas kama degay halay biray hadii la rabo wax ku birayna ma laha la yiri inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun dhiigaad wax galay ma jirto balse furiinka xaq ilaahay asoo ka soo dhamaan ma dhacay kood nafta go'aysi furiinku waa isku mid ah gabarta hooyadaada waxay tiri maxamedow inta baxdid soo degso soo miirso dad odayaal ina la soo tasho oo waaya arag la tasho waa baxay aniga guriga waa baxay waa ka tagay xaafadda leen deganay markaan baxay waa soo daba galay guriga waa soo galay wax inuu ii sheegay ma raba ma aqaan ninkii haddana waa gadoomay hadduu soo gadoomay anooba guriga joogo duhur isku diyaarinay gabdho kale ordaya yimideen arsoo orda abta cali aabe hay Madiina aabe hee maxaa dhacay maxamed waa isdili rabaa malaynaa guriga waa soo xirtay albaabada dhan waa xiran yihiin daaqadaa la fiiriyey xerigaa ku xiran asagana waa taagan yahay hala soo kala ordo albaabkan waa xirnaa canugaa derbiga laga tuuray kaasna waa u xirnaa haddii albaabadii la furi ninkaanooba asagoo dhanba ishabeeyey nafti ka dhacday qoorta raaracsan tahay aminkii yaa innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun la suqay la qaaday aan dhahay ninkan yaa la taabanine ciidanka degmada amniga hala waco si kastaba haatee Maxamed Allah u naxariistay wuxuu dunida kaga tagay 7 caruur ah
isagoo markaasi sidoo kalena qabay laba xaas waxaana arrintan ay noqotay mid markaasi aad loo hadalhayo xaafadda oo kiiskan ay ka dhacday marxuumka ayaa lagu wadaa berito in markaasi la aasi doono maadaama caawa dib lagu soo celi doono halkani oo ah gurigiisa oo markaasi maanta uu ku geeriyooday waxaanu haatan uu ku maqan yahay CID-da waxaana loo sheegay in beri markaasi la aasi doono caawana asagoo meyd ah halkani oo ku bari doono arrintan ayaa soo laalaabatay oo la xiriirtay dadka isdilaya Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo dhowr jeer kiisas noocan ah ay ka dhaceen magaalada caasimadda ee Muqdisho liibaan cabdi warsamo goobjoog bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel macaamiil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 ah sidoo kale macaamiil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah macaamiil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamiil uga shuba xirmooyinka adeega Dhamays Plus adeega idahab code numberka xidig 114 gees adeega idahab reseller code numberka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees macaamiil xirmooyinka adeega Dhamays Plus nafsadaada ku soor